golaha sare dhaqanka SSC waxay maanta idinku yeedheen inay kelmatayn ka yiraahdaan hadalkii Muuse Biixi shalay ama xalay uu ka yidhi waana ka xunnahay hadalka waxaanu cadaynaynaa inaanaan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer SSC ayahooda ka tashanaya danahooda maareynaya masiirkooda wax iska weydiinaya nabadgelyadooda iyo horumarkooda wax iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn dhibaatooyinkii hore Muuse iyo maamulkiisu ay dadkan u geysteen unbay sii laba jibaaraysaa argagixiso ma nihin argagixiso ciidankiisa aan ahayn oo deegaanka iyaga joogana ma ogin waxaan u arkaynaa deeg ma tiri buu yidhi wixii meeshan ka dhaca qaraxyo yimaada dilal in ay tahay wuxuu Muuse soo wado waxaanu ognahay argagixisada iyo isagu inay isku mid yihiin inuu u soo marmarsiyoonayo inuu hadhowto weliba dhiiggayaga iyo dadkayaga layntooda uu rabo inuu adduunka lacag kaga qaato oo yidhaahdo argagixisaa meesha joogtaan ku soo dilaya arrintaasi adduunka waxaanu ugu baaqaynaa intii hore aad ku tarteen dhibaatadayada yaa dhib noogu filan hadduu leeyahay halkii ninkii wax ka sii ahaayeen qabqabashada carruurta dhibaato badan baa iga soo gaadhay saan indhaha walga soo saaro haddeerna uu idin leeyahay suntii indhaha kaga ilmaysiinaysay iyo gaadiidkii aan jiirsiin lahaa isiiya hanoo maqlina annagu ma ogin argagixiso deegaankan joogta ilaahay hadduu kuu roon yahay isagu hadduu og yahayna dee awalba waa ku tuhmaynay inuu isagu dadka meesha dadka ku laayo inuu yahay inuu isagu deegaankan dadka ku laayo awalba waa ku tuhmaynay annagu waxaanu u fadhinaa aayaka tashi waxaanu u fadhinaa noloshayada sidaan u hagaajin lahayn waxaanu ballan qaadaynaa annaga dhibaato naga timid inay darsiyadayada iyo dowladaha dariska aanu la nahay ayaan gaarayn dadka iyaga aanu ku filaan karo deegaanka iyaga aanu ku filaan karo insha allahu tabaaraka watacaala nabadgelyadan Muuse leeyahay nabadgelyaan doonayaa annaguna aanu doonayno waxa hor taagan baan sheegaya Muuse inuu yiraahdo nabadgelyana waa doonayaa ciidankayguna waa idin dul fadhiyayaa waa ay diidantahay waa ay hor taagantahay inuu yiraahdo ciidan ku soo daabulo saaka waxaanu haynaa xogtii ciidamo dheeraada oo deegaanka iyaga lagu soo daabulayo inay jiraan inuu yiraahdo nabadgelyana waa doonayaa ciidankii idin leynayana idinka dulqaadi maayo ciidan kalena waa idinku soo ururinaya dee Soomaaliya waana dhageysanaysaa adduunku waana dhageysanayaa kaayagee khaldan oo colaad doonaya kaayageesa nabadgelyo doonaya annaguna waxaanu leenahay walaalow ciidankiina naga kaxaysta guryihiinni ku ceshta dhulka iyaga nooga baxa arrimaha iyaga noo daaya kadibna dad Soomaaliyeedoo darisaynu nahay oo wada hadli karaynaa laakiinse intaad qoorta nooga duuban tihiin aad dadka iyaga dhibaataynaysaan dee waxaynu ku wada hadalnaa meesha ma jirto aan ahayn dhibaatada naga daayo nooga baxa dhulka iyaga marka intaas fariintaas aan rabnay insha allahu tacaala in aanu adduunka iyo Soomaali iyo dowladaha dariska iyo kuwa beesha caalamka iyo dowladda hal dowlado Soomaaliyeed baan aqoonsanahay waa dowladda federaalka Soomaaliya aan u gudbinaynaa wabillahi tawfiiq